السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأنا واه معلم محمد إبراهيم halkan waxaan ka bilaabayaa koorsan la magac baxday basic accounting oo ah accounting basic oo ku saabsan accounting basickiisa maadaama aan soo gudbiyo casharo la xiriira computerizing accounting qofku haduuna accounting basic aqoon waa ku adkaanaysa inuu fahmo computerizing accounting sida aan kusoo gudbiyo youtube-kayga quickbook iyo taaliga iyo kuwa kale aan soo wado marka waa muhiim qofku inuu yaqaano accounting basic accounting basic markaad taqaanid waxa kuu fududaanaysa any software inaad fahanto aadna si muddo aad u gaaban aad ku baran karto maanta problemkan la siiyay casharkan problemkan la siiyay ayaan rabnaa inaan ka shaqeyno sida journal entry-ga loo sameeyo debit iyo credit sida loogu kala geliyo qaybta debitka maxaa galaya qaybta creditkana maxaa galaya casharka wuxuu ku saabsan yahay credit balance inaad fahano iyo debit balance marka journal entry marka la siiyay waa saan ayaa loo sameynaya halka ku qoranaysa date-ka halkana waxaa ku qoraysa particular LF iyo debit amount iyo credit amount marka lagu diro muxuu ahaa journal entry-ga hadda su'aashan la siiyo maxay waa following balance appeared in the books of Muhammad on 31 March 2019 pass the necessary opening entry for 2019-20 waxaan loo diray buugga Maxamed inaan diyaarino oo 2019-20 debit balance-ga maxaa galaya credit balance-ga maxaa galaya marka waxaan loo diray xaggan waa fiir xaggan su'aasha waxa weeye loo diray credit balance-ga waa la siiyay debit balance-ga waa la siiyay debit credit labadan must be equal inay noqdaan waaye haddayna noqon waxbaa ka khaldan hadda credit-ka waxaa la siiyay balance-ga capital baa la siiyay lacagta ku bilowda ah $3,000 bills payable iyadana waxay tahay waa liability side waaye marka la joogo balance sheet kuwana waa $500 credit iyaguna waa maxay waa liability what's the difference between bills payable and the creditors all waa maxay both waxa maxay waa liability waaye bills payable waa maxay waa deyn waaye aad adiga lagugu leeyahay waxa kugu leh vendorka ayaa kugu leh ama meherada ayaa kugu leh laakiin deynta waxa bixinaysa muddo aad u kaaban creditors waa maxay waa deyn lagugu leeyahay laakiin muddo dheer ka bacdi aad bixinayso 1 year wax ka badan aad bixinayso waxaa loo yaqaanaa long term liability tan waxaa loo yaqaanaa short term liability bills payable-ka qaybta haddaa debit-ka nimaano waa maxay waa furniture oo ah $400 iyo machinery oo ah $1,800 iyo debtors oo iyaduna lagu leeyahay $1,200 iyo bills payable oo isna ah $900 iyo cash oo ah $200 marka furniture waa maxay waa furniture waaye machinery waa maxay waa machinery waaye $1,800 lagu leeyahay debtors waa maxay waa sundry debtors waaye waa assets-ka ee tagta balance sheet-ka bills receivable iyo debtors waxa u dhexeeyana labadu waxay kala yihiin debtors waa maxay waa deyn aad macaamiishaada ku leedahay customer-kaaga laakiin muddo dheer ka bacdi ay bixinayaan 1 year wixii ka badan bills receivable waa maxay waa less than 6 months waa deyn aad ku leedahay macaamiishaada laakiin muddo 6 bilood ka yar ay soo xaroonaysa marka journal entry-ga ayaa saan u sameynaysaa waxaa qoraysaa date particular LF debit amount iyo credit amount dan waxaad samaysanaysaa saas ayay u samaysanaysaa wixii debit baa dhigaysaa wixii credit baa dhigaysaa furniture waa maxay waa $400 waa haysanaa machinery account waa haysanaa debit account waa haysaa waa saas waaye bill receivable account waa $900 cash oo ah cash oo ah $200 na saas waaye halkaas dhigaysaa oo labada lacagood isma hoos dhigo laakiin labada lacagood waxa samaysaa saas ayaa loo sameeyaa markaa buugga ku samayso ama computer ku samaynayso accounting rule-kiisa waaye xaggana waa maxay waa capital account qaybta waa maxay waa qaybta liability-ga ahayd dhinaca ay tagaysaa cash account to capital account to bills payable account to creditors account saas ayaa loo sameeyaa xaggana waxa waa pin open entry waaye laakiin saacashaka gumaamadkeeda uu sheegay marka waxay ahayd must be debit amount-ga iyo credit amount-ga must be waa inay equal noqdaan hadda khaanad halkaa ku dhigto aan geliyo aan dhaho sum and then auto sum aan dhaho then aan sum aan dhaho then aan dhaho enter waxaa soo baxday 4,500 haddii dhinacan 4,500 imaan weydo waa maxay waa khalad waa iyadana waxaa leeyahay auto sum ayaa ku dhufanaya then sum ayaa leeyahay then enter ayaa leeyahay iyadana waxaa soo baxday $4,500 markan saas ayaa loo sameeyaa markaas marka journal entry-ga wixii debit ay geenaysaa wixii credit ay geenaysaa furniture oo kale waa maxay waa debit balance machinery-ga debit balance isaguna debtors waa sundry debtors iyadana waa maxay waa debit balance bill receivable waa maxay waa debit balance cash account waa debit balance wixii marka saa labada isku magdhig sida isku dhinac dhigto dhinacan xaggan xiga waxa waaye waa debit balance dhinacna waa maxay credit balance marka waxaan jeclahay casharkaas inaan kusoo koobo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaad account basic si fiican u fahanto waxaa kuu fududaanaysaa inaad software-da fahanto
oo aan software ku shaqeyn karto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. فشلكم معها إن أدهنف كأذجاري